kulan habboon daawadayaal waxaa maanta aan ku suganahay magaalada Antwerpen oo ah caasimadda labaad ee dalka Belgiumka waxa dhinacayga midig fadhiya Mursal Faladagan alfanaan Mursal Faladagan oo saaxadda fanka isagoo ku cusub saameyn badan ku yeeshay isla markaana degan magaaladan Antwerpen maadaama aanu qaadayno waraysiyo kala duwan bulshada Soomaaliyeed ee halkan degan iyo magaalada Antwerpen waxaan la kulannay Mursal Faladagan bal waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabo dhinacyo kala duwan baan ka waraysan doonaa waxaan wax ka weydiin doonaa xilliyadu fanka soo galay waxyaabaha maaragtay keenay inuu caan ka noqdo muddo yar baraha bulshada iyo social media iyo heesaha uu qaado Mursal ugu horeyn ku soo dhawow Jailani Media iyo YouTube kanagan waxaad kale ku soo waxaan ugu horeyn aad ka warbixisaa bal hadda xilligaad fanka ku soo biirtay iyo intaad fanka ku jirtay waxyaabaha aad maaragtay qabatay waa ku dhawahay walaal Jailani Media aad baad u mahadsantiin waxa muhiim ah maanta kulanka idin la kulmay marka waxaan idin leeyahay walaalayaal walaal jiro waxaan idin sheegay warbixino badan oo kala duwan oo ay dadka fikrad qaldan qaar ay iga qabaan qaarna mid saxda ay haystaan marka waxaan leeyahay hadeerta mid qaldan waan dhiibaya in warbixinteeda mid saxsan waa laga helaya marka insha Allah taala waqa waxa jira heeso badan aad soo saartay muddo sanado koobana oo aad fanka ku jirtay qiyaastii ma xasuutaa inta heeso soo saartay horta wallahi hadda waa adiga abaarihi konton heesood imise sanay kugu qaadatay inaad heesaha soo saarto oo aad bulshada la wadaagto wallahi waqti waa ku dhex jiray laakiin inta yar aan hadda u dambeysay ee aan fanka ku dhex jiro waa maxaa 2017kii dhamaadkiisii iyo wax la mid ah ilaa 2000 waa hal san iyo wax adiyo bar amal waxa oo hadda aan caan ka ahay laakiin in ka horeysay waan ku jiray laakiin inta caan ma ahayn heesahaaga ugu caansan ee aad oran karayso maanta way muxuu haayay way suuq galeen ama way ugu hadalhaynta badan yihiin maxaa ka mid ah والله هيسا هذا ويبدين هين هيسا عانا وبدنا جرا أول ويسكون حجرين لكن هذا هيسا بدنا عانا صباح قدالك صباحي مركا سيدا كعكع ولا وذي قانون بروفيشنال وذي دت قدرن أي سومالي دون إسكحت رئيسوا إن يهيسا كلتو آد وبدنا يسيس سنتا إن سيمن ويبدين هين آد هستن سنتا لهم حاجة كذا والله waa maxaa heesu maag saaran yahay oo ah ku saabsan in markii loo fiirsho xaqiiqda in jaceelka iyo nolosha jaceelka ka hadlayso marka qof si u qaadato laakiin qofbo waxaan leeyahay waa maxaa hees in humaag uu saaran yahay in hadaba sida ay u dhacaysanay ereedeeda maldahan marka sida isku dhacayso iyo sida ay u socoto waa qof walba Soomaaliyeed inta badan inay fahmayaan jeclaa وهيس جعلون وحن كسو قوبي waxa jira heeso dhawaan hadda aad soo saartay oo marka baraha bulshada ama page inaad leedahay in kale aan dadku ogeyn horta ma jira wax page oo aad leedahay oo internet ku aad isticmaasho waxaan sheegay Soomaalida in ku xiran fankeyga waxaan u sheegayaa wax Facebook oo page oo aan leeyahay totally ma jiraan ani page malihi waxaan isticmaalaa Facebook waxaan ku galaa Mursal Faladagan Mursal xitaa ma aha waa ugu guuray marka ayaga dhaxdeeda ugu guuray marka dadkii kale isticmaalkii batay 20 ruux 30 ruux ba isticmaasho Mursalkii marka Mursal Faladagan ma aha hadda waxaan ku galaa Facebook waxaan ku galaa Mursal Faladagan Mursal marka waxa jira page dhowr iyo 70 oo qof ay ku xiran yihiin oo barta internetka alfanaan official alfanaan Mursal Faladagan ay ku qoran tahay page kaasi inta badan waxyaabo badan baa la soo dhigaa heestii u dambeysay la soo dhigayay waxay ka hadlaysay xubinta taranka haweenka oo ah wax dhaqan ahaan Soomaalida ka caagan maxaad ka leedahay arrinka wax ma kala socotaa heesta ma adiga ale sabab ma isa hadii aad leedahay aad uga hadashay xubintii taranka haweenka walaal waxa soo dhan wax ma ka jiraan waa maxaa waay waxyaalaha oo aan rabo inaan dadka fahansiiyo wax dacaayada waaye Facebook-yada soo dhan waa maxaa waa Facebook-yada dacaayada wado aniga marna ma ka hadal in xubin taran wax la mid ah laakiin waxaan ka hadlaa hees laakiin wali inaan wax soo qoray kama bahadal ma qoraalba kuma hadla ana afkan ka hadlaa wax baan
boqolkiiba 90 waxaan dhigaa Facebook waxa weeye waa heeso kaliya hees uma dhaafsani marka dad bay caayaan dad bay aflagaadeeyaan dadan aan leeyahay oo ku haminayo leeyahay war qofkaas goorma qof weyn oo meel weyn iiga yaala ah ayay mar qaar aflagaadeynayaan marka waxa soo dhan aniga maaha waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed inaana aniga ahayn qofka oo dadka aflagaadeynaya ama warbixintaas qaldan laga raali ahaado marka si weyn baan ugu raali gelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaad nooga warantaa heestaas waxaad leedahay anigu malihi oo waxba kala ma socdo waa sida u maqlaya waxba kama jiraan waxaas marka heestaran iyo waxaas ka hadlayso wiligeena ma qaadin mana qaadi doono marka waxa waaye fikrad qaldan oo qofkaas ka soo baxday oo Facebook sameystay magaciiga ku sameystay iskana dhigaya aniga waa qof qaldan laakiin waxaan leeyahay qofkaas qaldan ha laga raali aado wuxuu aflagaadada u geysanaya adinka kaliya ma aniga xitaa aflagaadu ii geysanaya waxaa jira showyo aad qabatay intii aad fanka ku jirtay bal hadda mid iyo laba adigoo nooga taabanaya iyo meelaha aad ku qabatay wallahi show waa qabtay laakiin showyada aan qabtay waxa waaye kii Sweden ugu horeeyay in haddana waxa ku xiga Holland oo dhowr mar marka inta badan intaasaan ku ekaa marka safarkaygu iska yaryaha badanaaba reer safar ma yahay reer show badan ma badni laakiin in badan waa haddana waa jeclahay inaan haddana dhigo laakiin hadda ma aha markeeda waqtigeeda imaanaysa dhowr jeer waxa la yiri Jarmal ku imanaya wadanka Jarmal ku imanaya showyuu ku qabanaya haddana arki waxba kama jiraan bay noqotay marna ma isku dayday inaad dalka Jarmalka tagto aad show ku qabato wallahi Jarmalka waan imaanaya laakiin waqtigeeda ay dhiman marka meel walba oo Soomaali joogto oo community Soomaali oo fanka oo on leeyahay waa loo tagi karaa inaad tagaan jeclaa sida Jarmalka oo kale waa meel weyn oo Soomaalida aad ugu badan tahay oo haddana aad iigu dhow meeshan jooga aad ugu dhow marka waa laba wadan isku dhiganahay Jarmal iyo Belgium marka waana jeclaa meel walba ilaa geeyiga Soomaalida inaan gaar raba geeska Afrika meel walba ay noqoto oo Soomaali ay joogto marka insha Allah tacaala taas aad baan ugu dadaalaya waxaad tahay nin fanaana oo kale imaka fanka siyaab sidoo ku soo galay baraha bulshadana caanka ah fanaaniinta hore ayaad ka taageertaa horta والله فنانينتي هore fanaanan taageerin kulli fanaaniinta cusub fanaaniintii hore taasi waxa waaye waa aad baan u wada taageeraa fanaan oo dhan taageero khaas ma leedahay oo role model ka dhigato tiraado hebel waa modelkayga ama qofkan higsanay wallahi taas waxaan ku soo koobayaa inaan fanaaniinta oo dhan aan u simanahay oo garabkooda aan wada taaganahay markaynu eegno fanaan baa tahay mararka qaar waxaad ku soo heestaa music haddana maanta ka codsanay inaad bilaa music nooga heesto oo taageerayaashaada iyo faniskaaga halkan ka daawan doona waraysiga aad bilaa music uga heesto heestaad soo qaban lahayd oo heesahaaga kamid ah waxaan leeyahay markaas ka fanka u ka fanka u ka fankii waa ka Soomaaliya taageera waa ka heestaas aad bay caan u tahay kolley waxay ka mid tahay heesaha aad maaragtay ku soo shacab baxday ama dadku aadka kugu barteen waxaa jira dad badanoo maanta markaan idhi waxaan aadayaa Belgiumka ama Antwerpen oo aad degan tahay yidhi nagu salaan mursal faala degan hablaha u badnaadaan weliba qaarkood dee wadankii ay magaalooyinka wadankii joogaan maxaad leedahay faniskaaga saaka sida gaarka salaanta nugu ka soo dhiibay aad baa ugu mahadcelinayaa walaal jiro sida ay jeceshay si lamid ay si kasta sarreysaba aad baa idin jecelahay marka walaalayaal inta ay xiiseynayeen in lamid ay idin xiiseynaya marka waxaan leeyahay jiro jooga ma awoodaa inaad dadka soo salaamay aad heesahaaga kamid ah adiguna hadiyad ahaan halkan u mariso wallahi hada u xul konton heesood baad leedahay waxa laga yaabaa aad bay u kala duwan yihiin qaar baa jacayl ku saabsan maadaama habloo badan yihiin baad heesta as leedahay salaanta way ka gudi kartaa halkan aad u marin karto taabo wallahi hadeertan waa ka xumahay aad baa u jeclahay laakiin waxa waaye hada soo diyaar gareysay dhileed hore hada igu sheegay kidis baa iga dhigtay hoosta iga soo galay su'aasha laakiin insha Allah taala marka dambe taan ka taxadiraya aad iyo aad buu mahadsan yahay mursal faala dagan aanu ka qaadaynay ama waraysiga aanu la yeelanay mursal faala dagan waa dhinaca kamarada oo Cabdulqaadir warsamo ah iyo anigoo Iskariye Jeelaaniya iyo channelkana Jeelaani Media
waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu